soo dhawaada dhagaystayaal, maanta waxa aynu qaadaa dhigi doonaa warbixin qoto dheer oo ku saabsan shakhsiyaadka loo yaqaan kingmakers ama kuwa aan muuqan balse leh awood siyaasadeed oo ka sarraysa inta badan kursiga madaxtooyada. Warbixintan waxa ay iftiiminaysaa koox ballaaran oo ka kooban siyaasiyiin, aqoon-yahano, ganacsato, xoghayno, la taliyayaal iyo dhaqdhaqaaqayaal door muuqda ku leh masraxa siyaasadda dalka. Inkastoo aysan badanaa qaban xilka ugu sarreeya ee qaranka, haddana waa dad leh awood ay ku hoggaamiyaan, ku mideeyaan ama ku kala jabin karaan musharaxiinta doonaya kursiga ugu sarreeya Soomaaliya. Qaybta koowaad, awoodda kingmakerska iyo sida ay u shaqeeyaan dalka Soomaaliya. Siyaasadda oo aad isugu dhex yaacday, beelaha, dano gaar ah iyo isbahaysiyo badan ayaa ka dhashay in ay soo baxaan shakhsiyaad awood u yeeshay in ay gacanta ku hayaan go'aamada doorashada, in ay abuuraan isbahaysiyo siyaasadeed, in ay dhisaan ama burburiyaan musharaxiin, isla markaana ay saamayn muuqata ku yeeshaan dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada. Iyaga oo aan ahayn madaxweyne, haddana waxay yihiin laga baqo, laga talo qaato, lagana tashado marka la qorshaynayo siyaasadda qaran. Waxay yihiin dad si qoto dheer u yaqaana habka awoodda loo qaybsado, dadka saamaynta leh, xiriirka beelaha, iyo sida loo maareeyo musharaxiinta leh rabitaanka hoggaamineed. Awooddoodu waxay ku dhisan tahay khibrad, shabakado xiriir ah, taageerayaal siyaasadeed, maal, aqoon iyo kalsooni ay ku leeyihiin bulshada siyaasadda gudaha ku jirta. Qaybta labaad, maxaa ka dhiga kingmaker? Kingmakerka dhabta ah waa qof aan isagu musharax ahayn balse sameeya heshiisyada hoose, mideeya beelaha, abuura hannaan siyaasadeed oo qof kale kor u qaada, isla markaana ka dhigi kara musharaxa uu taageerayo mid si cad u hoggaamin kara tartanka. Shakhsi kasta oo laga arko sawirka guud waxa uu leeyahay saamayn gaar ah oo u gaaraysa, sida qaar kaalin ku leh isku dhafka siyaasiyiinta, qaar door ka qaata dejinta khilaafaadka, qaar ka shaqeeya maalgelinta tartanka, iyo qaar soo jiita taageerayaasha gudaha iyo dibadda. Haddii ay mar keliya ku heshiiyaan hal musharax oo ay u wada istaagaan, sida warbixintu tilmaamayso, way adkaan lahayd in musharax kale uu ka guulaysto. Qaybta saddexaad, saamaynta ay ku leeyihiin go'aanada dalka. Shakhsiyaadkan ayaa kaalin weyn ku leh doorashada guddoomiyayaasha labada aqal, samaynta xukuumadaha, heshiisyada dowlad goboleedyada, go'aamada miisaaniyadda, iyo xulashada saraakiisha muhiimka ah ee amniga. Qaar ka mid ah waxay yihiin aqoon-yahano caan ah oo ku xeel dheer siyaasadda, qaar waa ganacsato saamayn leh, halka qaarna yihiin dad bulshada dhexdeeda sumcad iyo taageero xooggan ka haysta. Inkasta oo aanay dadka intooda badan isku arag fagaarayaasha siyaasadda sida musharaxiinta, haddana waa kuwa masraxa dambe ka sameeya go'aamada ugu culus. Qaybta afaraad, labada shakhsi ee ugu saamaynta badan warbixinta. Warbixintu waxay si gaar ah u tilmaamaysaa laba qof oo la sheegay in ay ka hayaan dhul siyaasadeed oo gaar ah oo ay kaga duwan yihiin kingmakerska kale. Inkasta oo sawirku muujinayo magacyadooda oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdinaasir Cabdulle, haddana macnaha guud ee warbixintu waa sidan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa lagu tilmaamay maskax siyaasadeed oo leh faham qoto dheer oo ku saabsan sida loo maareeyo isbahaysiyada. Waxa uu door firfircoon ka qaataa in uu mideeyo kooxaha kala fikirka duwan. Inkastoo uu leeyahay hami fog oo siyaasadeed, haddana waxa uu doorbidaa inuu ka shaqeeyo dibadda oo aan si toos ah u raadin kursiga ugu sarreeya. Saamayntiisu waxay ku soo baxdaa doodaha qaranka iyo talo-bixinta dowladda. Cabdinaasir Cabdulle waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah codadka ugu miisaanka culus ee gudaha siyaasadda. Waxa uu aad ugu lug leeyahay go'aamada muhiimka ah ee dowladda dhexe. Waa shakhsiga lagu yaqaan aragti ballaaran iyo taageero sii kordhaysa. Waxaa loo arkaa shakhsi mustaqbalka dhow kaalin ka qaadan kara hoggaanka sare ee dalka. Labadan qof ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa maanta ugu saamaynta badan gudaha siyaasadda Soomaaliya, isla markaana aan weli u tartamin madaxtinimada, balse leh awood ay doorasho kasta u beddeli karaan dhinac kasta oo ay rabaan. Warbixintan waxay muujinaysaa hal xaqiiqo oo muhiim ah: Soomaaliya ma aha dal ay doorashadu ka godo qof keliya, balse waa dal ay ku badan yihiin shakhsiyaad aan kursi haysan balse haysta awood ka weyn kursiga laftiisa. Kingmakersku waa furaha isku haynta siyaasadda, kobcinta isbahaysiyada iyo dejinta awoodda dalka. Iyaga oo aan muuqan, haddana waa halka laga hago jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. Haddii mar ay hal dhinac wada galaan, waxay beddeli karaan mustaqbalka siyaasadda dalka.